waxayna suura gashay inaan khadka telefoonka ku wareysano madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo inoo faahfaahiyay qaabka uu isku karantiilay sida ay howshii maamulkiisa u sii socon doonto iyo waxa laga yeelayo doorashooyinkii baarlamaanka ee maamulkaas. Waxa uu u waramay madaxa laanta Soomaaliga ee BBC-da Muxyidiin Axmed Roble. arrinta go'aanka isgooniyeelidda waxaan rabaa inaan hal shay sideedaba inaan caddeeyo. cudurkan waa cudur halista aad loo kala qaado, daawo male, talaal male, faafidna aad ay u sahlan tahay. waxaa kaloo la soconnaa xaaladda caafimaad ee waddankeenu ku sugan yahay marka loo fiiriyo wadamadii waaweynaa sida Mareykanka iyo Talyaaniga iyo Jarmalka iyo Spain waxay la mareen iyo waxay had ku jiraan marka loo fiiriyo iyo anaga xaaladdeena caafimaad aan ku jirno waa inaan dadkeena barnaa in xalka keliya oo lagu maareyn karo inuu yahay katiinada faafidda cudurkan in dhexda laga gooyo oo la isgooni yeelo. dadka mas'uuliyiinta waxaa lagama maarmaana inay dadka u noqdaan tusaalo. dhaqankeenu aad u isgooniyeelka ayuu necab yahay, dadku waa dhibsadaan, fasiraad xuna laga sameynaa, dacaayada laga sameynaa, yacni dhaqankeenu weli uma bisla mabda'aan ah isgooniyeelka. waan kartay madaxweyne reer Hirshabelle waa sida kaliya oo cudurkaas aan uga badbaadi karno. waxaad inoo sheegtaa isgooniyeelka aad ka hadashay oo aad hadda ku jirto muxuu uga duwan yahay habkiin aad u nooleed ama aad u shaqay jirtay wixii ka horeeyay markaad isgooniyeelkan aad gashay? wuxuu uga duwan yahay dhaqankeena siyaasadeed waxa aad ugu badan qaabilaadaas qofka shakhsiga inta qofoodoo la kulmaysaana way badan tahay. sidaas daraaddeed isgooniyeelku wax kale maaha, waa qaabilaadaasoo la joojiyo, waa aaladaha tiknoolajiyada sida taleefanada iyo whatsappyada iyo social mediaha oo la isticmaalo iyo dadka mas'uuliyiinta in shaqada rasmiga ah oo fiildka ay qabtaan. annaguna madaxda haddaan nahay dadka aan tusno qaabilaadda iyo isu soo ururka iyo reception call la fadhiyo iyo dadkoo saf loogu jiraaho inay cudurkii saacidaynayso xaaladda aan ku jirnana wax faa'iidaa inaynu ummadda Soomaaliyeed u lahayn. bal qoyskaagii iyo xogheenadaadii ka waran, iyagu weli ma kulmaysaan, ma isla fadhidaan, ma sheekaysanaysaan, mase keligaabaa qol ku jira? horta waa ka xumahay, ilmahaygii aad iyo aad ayagana taleefonkaas uma iskala soconnaa, isku meel ma joogno, laakiin dadka ila nool oo ama waardiyaha gaarka ama ciidamada amisom meesha aan joogo ee jooga ama dadka aniga sida hoose ila shaqeeyo xogeynadii badato oo si caadi ah u shaqeynaa sabab qol loogu jiro ma jirto. dadku waa la shaqeynaa, shaqo la qabanaa, laakiin dhaqdhaqaaqooduna waa yar yahay, bixitaankoodu waa yar yahay. marka ka waran adeegyadii kale dawladdu ay bixinaysay ee aan ahayn madaxdu inay dhexdoodu xiriiraan, iyaguna ma hakiseen mise siyaabo kale u socdaan? howlahaas waxaa la hakiyay wixii aanan critical aanan ahayn. wasiirada guddiga waxaan u xil saarnay in wasiirada dhammaantood ay la kulmaan, soo noqoraan shaqaalaha laga maarmin oo loo baahan yahay in shaqada joogaan. shaqaalihii aan critical ahayna sida kuwa federaalka loo taxo kale aan u fasaxno, laakiin arrimaha xasaasiga sida amniga iyo mataqaanaa adeega guud iyo xabsiyada iyo kontaroolada iyo eerboorada shaqadoodu dadkii caadiyay u wadaan ayagoo raacayo tusaalayaasha wasaaradda caafimaadku ay siinayso iyo qalabka mataqaanaa protectionka loogu talagalay inay naftooda ku difaacaan. marka madaxweyne, wasiirka xukuumaddaada ka tirsanaa xildhibaanka ahaa ee koronaha u geeriyooday wax kulan ah oo aad yeelateen muddada lagu tuhmayo inuu xanuunsanaa ama xilli u dhow wax ma jiraan? aniga shakhsiyan wasiirka haddana haddii ka saddexeeda isku keen dambeysay oo bishii Maarso 28 inay ahaydaan u maleynaa kulley dadkii oo la kulmay waqti incubation period lagu kala ogaan badankoodu waa soo dhaafeen. marka madaxweyne, Hirshabelle waxay ahayd inay xilliyadani howlihii soo xulista baarlamaanka cusub ay bilowdaan, haddana waa kan corona yimid, madaxweynihii iyo xukuumaddii iyo xildhibaanadii waa iyaga guriyihii ka soo shaqaynaya ee kulamadii yareeyay. howlihii soo xulista baarlamaanka Hirshabelle ma u malaynaysaa inay bilaaban karaan inta arrinkan taagan yahay? wallaahi annaga laba arrimood ayaa hadda noogu daran. waa saamaynta muxuu ahay caafimaad oo cudurkan ilaahay hanaga fududeeyo ay keeni doonto. waxaa ka sii welwel badan dhibaatada iyo saamaynta xagga dhaqaalaha ay keeni doonto, sababtoo ah
maanta shirka aan galnay doodeeda ugu badnaa waxaan uga hadlaynay saameynta dhaqaalaha dadka maalinlaha ku nool oo mushaarka mataqaana aan qaadan oo aan xawilaad waxba ka helin oo yaanyo yar iyo liin yar iyo mataqaana khudaar yar magaalada keensadaan ku nool $1 $2 maalintii soo gasho dadkaas impactiga ay ku yeelan doontaa ayaa welwel nagu haaya haddii ilaahay ha naga fududeeyo waqtigii aan cabsida ka qabnay haddaysan nagu dheeraan oo waqti doorashadii la qaban karo dabcan yani maasha allah in ilaahay naga fududaa rajaynayna laakiin taladaasu tala hadda maanta noo taal maaha waa tala aan geli doono si wadar ah oo ka tashi ah waqtigii ilaahay ee arrintan dhinac noo dhaafsiiyo waa hagaagkaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo u waramayay Muxidiin Axmed Roble.